السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الشرفت له كسر دواد عشر كنا مانتا وحساب هي best motivational words منيبة مزاري. هذا الله قيمة بدن إيسوجي دي سون منيبة مزاري وديري جرينا إن شاء الله تعالى فيديو جن إلى دعوة كدي بيان تصير دونا عشر كنا. والله نحن كعصنا هذا نوصلنا سبسكرايب نصرته أنا وشير جرس فيديو عشان سولينا يحبذ تسيء وفايدة ثاني دعوة شو عن. I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. The words can make you, break you, they can heal your soul, they can damage you forever. So I always try to use the positive words in my life wherever I go. They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently abled. They see my disability. They see my disability, I see my ability. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. I believe waxaan aaminsanahay in the power of words. Ereyada awoodooda. Many people speak before they think. Dadka badi ama dadka badankood way hadlaan intaysan fikirin ka hor. But I know the value of words. Laakiin anigu waxaan ogahay ama aan garanayaa hadallada qiimahooda. The words can make you, hadalladu way ku saameyn karaan, break you, wayna ku jebin karaan. They can heal your soul, nafsadaada ayay bogsiin karaan. They can damage you forever, weligood ama abad ayay ku dhaawici karaan. So I always try to use, sidaa darteed anigu mar walba waxaan isku dayaa inaan isticmaalo positive words, hadallo wax ku ool ah in my life, noloshayda, wherever I go, meel walba meeshaan aado. They call it adversity. Dhibaato ayay ugu wacaan ama dhibaato ayay ku magacaabaan. I call it opportunity. Aniguna fursad ayaan ugu wacaa. They call it weakness. Daciifnimo ayay ugu wacaan. I call it strength. Aniguna awood ayaan ugu wacaa. They call me disabled. Curyaan ama naafo ayay aniga igu wacaan ama igu magacaabaan. I call myself differently abled. Aniguna waxaan nafsadeyda ugu wacaa ama nafsadeyda aan ku magacaaba differently abled, mid si ka duwan sida ay u maleeyaan wax u awoodo. They see my disability. Daciifnimadeyda ayay arkaan ama wax qabad la'aanteyda ayay arkaan. I see my ability. Aniguna awoodeyda iyo waxtarkayga ayaan arkaa. There are some incidents, waxaa jiro dhacdooyin qaar that happen in your life on noloshaada ku dhaca, and those incidents, dhacdooyinkaasina, are so strong oo awood bay leeyihiin, way awood badan yihiin, that they change your DNA, ayagoo bedeli kara DNA-gaaga. Those incidents, dhacdooyinkaas or accidents ama shilalkaas, are so strong, way awood badan yihiin, that they break you physically, ayagoo muuqaal ahaan ku jabin kara. They deform your body, jirkaaga ayay qalloociyaan, but they transform your soul, balse nafsadaada ayay bedelaan. insha Allah taala waxaan filayaa inaad casharkan ka faa'iideen. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, haddii aad horaan noola joogtana like noo saar, dhiirigelin ayay noo tahay. una share garee saaxiibadaada si ay uga faa'iideen casharada qiimo badan aan soo gelino. wixii farina waxaan inoogu rabi kartaan qaybta comments-ka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في القلب منتجع راق وفي المقال